السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا أمة الصومالية ميل كستوي عالمك كجوجان وانا السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن قارهان لهاليا دادك رير إثيوبيا الصومالية إثيوبيا لهاليا صومالية إثيوبيا waxaad dad ixtiraam badan oo dhaqan leh waxaana dhaqankiinu yahay la idinku ababiyay inaydan dadka dariskiina ah iyo dadkeedin dhex degan ee maxasta midna inaydan wax yeelin oo aad xanaanaysaan baa la idin baray laakiin yaa daris la tihiin oroma aan qofan oroma ahayn ba aan dad u arkin ba daris la tihiin dadka reer Oromiya waxaanu nahay dad darisa waxaanu nahay dad walaalo oo Itoobiyaan ah waxaanu nahay dad aan kala maarmin oo afar la wadan wada degan dad wadan wada degan ma kala maarmi karaan anagu ma nihin dad marti Itoobiya u jooga Itoobiyaan baanu nahay ma nihin dad magangalyo idin ku yimid oo qaxoontiya anagu waxaanu nahay dad Itoobiyaan ah maxaa keenayna maalin walba dadka naga baabuurta lagala dego oo Oromadu intay baabuurta kala degaan ay ku gowrgowracaan suuqa iyo meel walba uma dul qaadanayna anagu waxa ay Oromiya sameynayso dawladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa intaanu dul qaadan karna waanu dul qaadanay waraaba daaleba dirirtiisa loo tagaa Itoobiyana waxay ku fiican tahay inaa midnimada la ilaaliyo iyo federaalismka laakiin haddii kilal kamid ka baxo dee qoladay ku xadgudubtay way iska celinayaan anagu Itoobiyaan baanu nahay cidna kama baryayna Itoobiyaanimadanada wadankana anagu kuma nihin qaxooti iyo dad soo qaxay oo magangalyo jooga man anagu Itoobiyaan baanu nahay anaga idinka Itoobiyaansan Oromiya oromada anaga ka Itoobiyaansan anagu waxaan nahay difaaca kaliya ee Itoobiya difaaca gaashaan baanu nahay oromadu waxay baratay meel dhaxo oo bideerada ku cuntay baratay dagaal ma taqaana intay kibreen bay dariskooda iyo kalaba garanay cadawgoodii iyo nasteexooda oo kala garanayaanba hadda cadawgiina iyo nasteexina Oromi kala garanaysaan annagoo dariso 24 saac difaacna baydaan maanta dib noogu soo noqoteen oo idan baabuurta kala degteen dadka anaga maxay yeelaan Soomaalidu walaalihiin weeyaan waa dariskiina masaakiinta maxasta ee baabuurta saaran maxay yeelaan ee baabuurta kala degaysaan gowracaysaan waxaad ilowdeen inaa anaguna malaayiin Oromiina dhex joogtaad ilowdeen bal anaga reer DJSI Itoobiyaanka iska daayay meel kasto ay Soomaali joogto Hargeysa Muqdisho Djibouti Boosaaso waxa joogay waa Oromo dad kala ma aha Oromo joogtay meeqa milyan ah laakiin anagu ma nihin dad gun oo bakhti oo bini'aadanimadu ka tagtay iyo damiirku ma nihin anagu waxaanu ixtiraamnaa bini'aadanimada darisnimadanu ixtiraamnaa weligiin maad aragteen qof lagu dilay bal DDSI iska badaawaaba Itoobiya lagu dilay ama Hargeysa Boosaaso iyo Djibouti maad aragteen waa kuwa naagihiinu sida 10 sida digaaga ugu dhale ee saa gacanta loogu haye ay u siman yihiin iyaga muwaadiniinta kale damiir ma leedin bini'aadanimadiina way idin ka dhimatay darisna ma garanaysaan walaalnimana ma garanaysaan bini'aadanimana ma garanaysaan saahadad intaaba garanaysaan oo damiir leedihiin bini'aadanka idin la nool baydan ku xadgudubteen waad dharagteen de nabadgelyadii baa baan idin sheegtay laakiin waxaad ogaataa maalinka ay nabadgelyadu baaba'do inuuna qofna dhargeynin uuna beer qodanaynin taa waa inaad ogaataan Oromoy anagu Soomaali baanu nahay Itoobiyaan baanu nahay idinkama baryayna Itoobiyaanimadana dhulka anaga aan deganahayna anagu qaxooti kuma nihin anaga iskale Allah subhanahu wa ta'ala oo naga qaadi kara sidaas una wax lagu ma helo xumaan baad wax ku raadinaysan laakiin wanaag wax lagu waayo xumaan lagu ma helo kolba waxba nin hangaraarac lagu ma dhutiyo anagu Soomaali baan waxba u noqon mayno hal nin iyo hal islaan iyo hal ilmo oo meel ku gowracdeen uma noqonayna wax laakiin wali waxaan ixtiraameynaa Itoobiyaanimada iyo federaalismka iyo sharciga wadankeena ixtiraameynaa darisnimadanu ixtiraameynaa bini'aadanimadaanu wali ixtiraameynaa waxaan idin oran lahaa hadda hawsha way dhowdahay hadda ka waantoobaan idin oran lahaa Oromoy hadda dadkiina waad garanaysaan Soomaaliga waa taqaanaan waynu isla deganahay waad garanaysaan qofkii wax garanayo ee wax garanaya bini'aadanimo ama damiirka bini'aadanimo ku jirto
ama darisnimo garanaya ama Ethiopia inay nabad ahaato doonaya hadaba dadkooda waxa uu sheego oo ha yiraahdo dariskeena waa inaynu ixtiraamnaa saan annaguba naloogu barbaariyo inaanu dariska ixtiraamno waxaan u sheegayaa dadka reer Soomaalida Ethiopia ee reer DDSI ciidankooda shacabkooda iyo maamulkoodaba waxaan u sheegayaa nimaan shanta farood ka reebin sharci kaama reebo nimaadan mar dharbaaxiloodan xanuujinina kuma qayrsanaya waa inaad taa ogaataan ninka maanta gurigaaga ku socda ma badaaradaadu daynayaa albaab iga fur kuma oranayo dee qof doonayaba adiga ku doonaya gurigaaga albaabka iga fur kuma oranayo waxa weeyaan nabadu anaga ka DDSI ahaan dan nooma aha Ethiopia oo dhan bay nabadu dan ugu jirtaa Ethiopia oo dhan ayaa ay nabadu dan ugu jirtaa iyo wada noolaanshaha iyo wax wada qaybsigu dawladda federaalka Ethiopia waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay Soomaalida Ethiopia ina ay war degdeg ah ay nooga keenaan dadkan Oromada in dariska nahay annaga maalinba 2 qof iyo 3 qof iyo 10 qof iyo 100 qof bilaash nagagama dhimanayaan waragayagu ma xoolaa ragayagu ma xawayaanba ma ariba ragayagu war waa dad bina aadana waanu u baahanay qof walba hooyaa dhashay qof walba guri buu ka soo jeedaa guri buuna ka soo baxay family buu leeyahay ciyaal buu leeyahay hooyo leeyahay aab buu leeyahay baa dareemi weydeen taas uma dul qaadanayno war ragga iska celiya baan idin leeyahay iyagu hadday ixtiraami waayeen Etoobiyaanimada iyo darisnimada iyo bina aadanimada idinkuna ay ixtiraamina nim aadan mar xanuujinina wallahi inuuna ku daynayna sababtoo ah qof ku og waxa tahay kumaba soo degdego qofku qayrsanaya idin ma qayrsanayaan Oromadu way ay shacabkiina ugu soo ordayeen idinkaydin og yihiin de maxaad ka ixtiraamaysiin federaalka aad uga sugaysiin warka federaalku iyagaba warka ma sugayaan idinkuna ka sugina bal waxa dambe isgaadha war wixii dhaca war un baa ka dambeynaya qofkii dhintay un baa dhintay darbaaxa kulul waa inaad ku dhufataan Oromada markaas Ethiopia federaalku uu ka soo jawaabaya ana oge aga oragu ma ariba dadka la iska gowrgowracaya baabuurta lagala dagayaay annagu meeqaan ugu dhaxnool qofna ma barakicino qofna kuma xadgudubno maanu idin baryeena annagu Oromo ma idin baryeena idin ma baryeena anagu Ethiopian baan nahay abaalkiin baanu waanu naqaan abaalkiin beero dambe ma qodanaysan hadaan dayn weydaan wallahi inaan bideelo dambe la cuneynin aga war ay dhaaftay geeska qaba buu yiri hadda way dhaaftay ixtiraam way dhaaftay qofku markuu ku ixtiraamaan la ixtiraamaya DDSI marka dadku ku ixtiraamaan la ixtiraamaya dadku qofku ku ixtiraam waayo hooyooyinka ayo mulaaga dilayo maxaad ugu sugaysaa ma aakhirad dhinaca noo galaysin haddaydan hal mar naga xanuujinaynin raggan habeeniya maalin aanu ka seexan la'nahay intay dhargeenu caloosha saa noogu soo xoqanaya maaha shacabda annaga waxaa nala dagaalamaya waa askarta Oromada weeyaan aga marun baa la doonayaa mise been runtu fanta maade annagu Ethiopian baan nahay annagu ma niin dad qaxootiyo magangeliyo u jooga Ethiopia annaga iskala wadanka waanu dhimanaa waanu dhalaa waanu iyagaanu noolay Ethiopia ciidanaanu u noolaay way inoo qabsanayaan sidaasi uma dul qaadanayna annaga dhibka iyo lagu hayo umada xuduudka degan ee Soomaalida ay Oromadu ku hayso ciidanka Oromadu waliba ku hayaan ciidanka wax ma garatada step wax ay kala ogyiin ma wala mar walba markuu jaadka iyo lowska ka soo dharga ku soo dibirar ridanayaan maalin walba ma mid ba suuqa yaalan anagu canjeer lagama dubtade baabili lagama quraacan saaka de cabsi baa looga quraacan waayay ciidanka Oromada looga quraacan waayay aga annagu idinkaan sugaynaa yaa DDSI annagu idinkaan sugaynaa yaan mayada noo imanaya maragana gowracayaan marka aan hoos joogna maan barinaa mise dhulkaan uga soo guuraa aga de ragga meel la iska saaro haddaydan iska celin noo sheega iyagaan ku biire waxaan
sax maaha meeqo hooyaa ku gablamaysa waxay dhibayo ay xanuujinayo jirku ila gubanaya waa dadka bilaa macniga intay dhargeen dadka dariskooda ee walaalahooda ku dibirridanaya xumaanta xalaashaday baan la hadlayaa ee oromada ah ee aan kala ogeyn inuu bini aadan meesha joogayeen kale nin walba markuu soo dhargo dee nin haddii looga aamuso oromo anaa idinka aqaan nin hadday ku dharbaxanood uga aamusto mancay kugu dilayaan manjo indho guduudan haddaad tustana taniya awowgood dib buu kaaga qaxayaa aga warraga iska celiya dee yayna idinka qaadan daciyaalkiina haddoo idinku soo qaxay jijigaan waaye usoo qaxaynaa dee aga meelan meesha usoo banaynaad rabtaan inu kasoo guuro oo kaaleena difaaca oo naga celiyo dharbaaxa kulul naga dhufta waxaana dilayaa waa ciidane aga waan salaamayaa